bismillaahi raxmaani raxiim. Kusoo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena aynu kaga warbixinaynay strategy-ga ama dariiq xaqiiqashada waxa la yiraahdo iyo muhiimadda iyo doorka ay ka ciyaarto bulshada. Barnaamijkeena qaybtiisa hore waxaanu kaga soo hadalnay taariikhda istiraatiijiyadda, waa maxay istiraatiijiyaddu iyo sababaha aynu ugu baahannahay inaynu lahaano strategy. Hadaba maanta waxaanu ugu talagalnay inaynu iyadana 3 qodob kaga hadalno. Qodobkaad wuxuu noqon doonaa waxaanu kala qaybin doonaa istiraatiijiyadda inagoo kusoo koobi doona 3. Sidoo kale waxaanu ka hadli doonaa hab maamulka istiraatiijiyadda iyo maraaxiisha uu maro. Hadaynu ka horeyno qaybaha istiraatiijiyadda, istiraatiijiyaddu waxaanu u qaybin doonaa 3. Ka ugu horeeya wuxuu noqon doonaa corporate strategy. Waa istiraatiijiyadda ay samaysato shirkad ballaaran oo ka kooban qaybo kala duwan isla mar ahaantaana leh hal hadaf kana midaysan hal aragti. Markaan rabo hadaba inaan strategy ama corporate strategy inaan sameeyo, waa inaan aqaanaa cidda aan la tartamayo, waa inaan garanayaa ahdaafta aan rabo inaan gaaro, sidoo kale waa inaan garanayaa fursadaha suuqa ka bannaan. Waxaa kaloo iyaduna ay tahay inaad garanayso khataraha kusoo wajahaya ama caqabadaha ay tahay inaad suuliso. Haddii aan u gudubno waxa loo yaqaan business strategy, waa habka shirkad loogu sameeyo saami suuq, una garanayso halka aad ka geli lahayd iyo doorka aad ka ciyaari lahayd si aad ugu guuleysato hadafka ay shirkadaadu leedahay. Haddaba markaynu leenahay halka aad ka geli lahayd maxaynu ka wadnaa? Waxaynu ka wadnaa shirkadaadu waa inay taqaanaa macaamilka ay doonayso waa kuma, sidoo kale waa inay taqaanaa halka ay ka degi lahayd suuqa, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah waa inay taqaanaa shirkadaadu waxa ay iibinayso iyo ay la soo shirtagayso ay rabto inay bulshada la wadaagto. Marka aynu leenahay waa inay ku guuleysataa oo ah inay ka guuleysato competitorskeeda ama tartamayaasheeda. Waxaynu ka wadnaa kow waa inay awoodeeda marka loo eego shirkadda kale ay taqaan, waa inay taqaanaa istiraatiijiyadaada aana kuguna qoran tahay waxaad rabto inaad kaga wanaagsanaato tartamayaashaada. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybaha istiraatiijiyadda qaybta u dambeysa oo ah functional strategy. Functional strategy waa hirgelinta qoraaleedkii aynu soo qorannay iyo ahdaaftii aynu degsinay sidii aad u hirgelin lahayd ama ugu shaqayn lahayd. Waxay kaaga jawaabaysaa heerka awooddaada, waxay kaaga jawaabaysaa technology-gii ama wixii ii fududeyn lahaa inaan haysto iyo in kale. Functional strategy waxay kale kaaga jawaabaysaa hawlqabadkayga halkee dhinacyo baan ka hormariyaa, iyo qodobka ugu dambeeya oo ah hawlwadeennada ama cidda ila shaqaynaysa ee igala shaqaynaysa inaan gaaro hadafka aan leeyahay ma yihiin kuwii saxda ahaa. Haddaynu halkaa kaga baxno qaybaha iyo istiraatiijiyaddu leedahay, waxaan u gudbi doonaa hab maamulka istiraatiijiyadeed. Hab maamulka istiraatiijiyadeed waxa uu yahay sida si cilmiyeysan oo farshaxamaysan loogu diyaariyo looguna hirgeliyo isla mar ahaantaana la isugu dubarido go'aamo kala duwan oo kuu sahlaya inaad gaadho hadafkii iyo ujeeddadii ay lahayd shirkadaada. Haddaba hab maamulka istiraatiijiyadeed wuxuu maraa maraaxil kala duwan oo 3 marxaladood. Marxaladda koowaad waxaa la yiraahdaa marxaladda diyaarinta. Marxaladda diyaarinta kow waxay tahay inaad garanayso aragtidaada iyo meesha aad rabto inaad gaadho. 2 waa inaad taqaanaa sidaad u gaari lahayd oo waxa loo yaqaan mission ah. Waa inaad taqaanaa SWOT-kaaga, waa inaad SWOT waa maxay? SWOT waxa weeye inaad taqaan waxaad ku wanaagsan tahay, waxaad ku liidato, inaad taqaan furaska suuqa ka bannaan iyo caqabadaha kula soo darsaya ee ay tahay inaad suuliso. Marxaladda labaad waxaa la yiraahdaa marxaladda hirgelinta ama implementation waxa la yiraahdo. Marxaladda hirgelintu waxa weeye marxaladda loo yaqaano action stage-ka oo ah halka ay wax ka dhacayaan. Waa in businesskaagu leeyahay structure-kiisu diyaar yahay, waa in businesskaagu hab maamulkiisa iyo policy-giisa iyo nidaamkiisu u dejisan yahay, waa in businesskaagu diyaar u yahay hirgelinta wixii aad qoratay oo dhan. Haddaan u gudbo marxaladda ugu dambeysa oo ah marxaladda aynu maanta xalqadeena kusoo xiri doonaa waxay tahay
marxaladda loo yaqaano evaluationka ama dib u eegista. Evaluationku waxa uu kaa caawinayaa inaad ogaato heerka iyo halka ay marayso shirkadaadu. Dib u eegista wixii aad qortay inaad gaadhay iyo inaanad gaarin. Haddaba sidee loo sameeyaa evaluation? Evaluation waxaa loo sameeyaa 3 level baa la maraa. 1 inaad dib u eegto ahdaaftii iyo qoraalkii iyo wixii aad dejisatay inaad gaadhay iyo in kale. 2 inaad cabirto. iyo 3 oo ah inaad dib u saxdo. Masalan haddii aanad gaarin inaad isku daydo inaad wax ka bedesho waxna ku soo kordhiso. insha Allah xalqadeenan maanta halkaas inoo joogi doontaa intaanu ku kulmi doono xalqada labaad. waxaan kaga tegayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.